marka hadda muhiimadda markaan ku soo ururiyo aniga iyo inta wax qabiso naga dhaxeeyo oo meel noo yaala haba yaraatay ma jiro wahagaag waxa jirtay muddadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaasaan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada su'aasha anigu hadalka iyada kamaan maqal laakiin waxay cid kale yiraahdeen ama qof YouTube yiri ama qof kale live ka hadlaya yiri aniga waxay qosay maaha kaliya waxaan diyaar u ahay wixii aan walaashay ka maqal kaliya inaan ka jawaabo marka waxaan sinay waxyada ka soo baxay maaha waxaan hadda anigu jawaabayna maaha because waxay tiri maaha خلاص wahagaag waxa jirtay inaad baxsatay sida dadku sheegeen Ethiopia u baxsatay arinta baxsiga maxaa ka jira horta sheekadan waxay socotaa muddo 6 xisaab anna sida sagalay adigu wogtahay waxaan ka maqnay magaalada waxaan ka maqnaa 22 cisho marka falku goortu dhacay iyo goorta anigu tagay horta wax isu dhooba ma yahayn marka wuxuu maana arkaa in hadal meel waayay haddaan baxsaday hadda waan iga soo noqday cidii doonaysa hay timaadada wahagaag waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas san horeba kugu sheegay waxaan kala soo fariistay ama diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas wali carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina fulumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartanka ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto mar kale aan kugu celiyo lacag $2,000 ayaa bil kasta ay biil kugu soo diraysaa leeyahay Safiya arinta kale iyadana maxaa ka jira horta laba qof sheekaysteer liish ugu dhaxaya wax way deey isu diriyaan wax way kala qaadanayaan oo way magaranaysaa wax kasta dhexmar kara laakiin cadadka la sheegay iyo waxaan aniga Safiya isu diri jiray anigu ma ogi oo $2,000 ee bil kasta joogtada haayo ama aanu kala badsano ama aanu kala yareysano laakiin dadka marka ay sheekay xiriir dhaxayaan wax way siinayaan waxay laakiin Soomaalidu cabiratay wallahi iyaga ka jawaabaya wahagaag waxa jira Facebook lala dhaxmarayay imika qaybaha baraha bulshada oo daqiiqad loo soo update gareynayay oo ilaa sawir aan galay la soo dhigay oo adiga ka hadlayay Facebookaasi ma adiga isticmaala anigu Facebookigi mudada 5 cisha deactive ka dhigo hawada baan ka saaray laakiin waa fake account iyo dad ama falow ku raadsanaya ama wax kale ku deedeeyay wax Facebook hadda anigu gacanta igu jira waqti xaadirkan ma jiro hal Facebook baan isticmaalaa kiina deactive ka dhigo hawada buu ka maqan ma jira intii ay soo baxday sawiradan lagu eedeeyay inaad ka soo dhigtay walaashin Safiya Tusmo wax dhibaato adiga ku soo gaadhay maxaa ku soo gaadhay nasabay bay soo gaaday hansabad bay soo gaaday qaar la waan ku dilayna bay soo gaaday qaar la hargeysa sid ugu soo noqon bay soo gaaday yaanihi tii adigu waa yaanihi wallahi waxaan xitaa yaani hadal aan meel u haystay iyo meel u socday iyo meel ka socday min aan garanayn baan waararkayo waan dhaafayo laakiin hadii ay tahay adiga habar kaysa leeyayo hadii habar tahay adiga habar kaysa leeyahayo hadii aan shabaad tahay wax qarsoon bade ma markaas u soo jeedinaysa bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa horta dad 1 milyan ku dhow ayaa baraha bulshada naga habaarayay oo in badan habaartamay oo ma garanaysaa waxaan horta caaw Ilaahay magan uga ahay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo habaarkeeda aanu qasaarin mid Ilaahay ka aqbalo oo noqdo hadii marka hadalka waan ku soo wadaayay hadii waxaan anigu sameeyay uu yahay ummadda Soomaaliyeed ee 1 milyan ku dhow ay habaartamaysay waxaan habeenka caawa jecelahay in Ilaahay ka aqbalo waxaan geystay haduu anigu yahay inaan Ilaahay iga harin ummadda Soomaaliyeed habaarkoodaasi igu dhaco hadii kalena cid geysatay uu ku dhaco